بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسن دمانتين كسو دواده muuqaal kale oo cusub caawana waxaynu ka hadlaynaa qissatu xubbin waa qiso jacayl ah ciwaankeeduna waxa uu yahay al-jundiyu wathariya askarigii iyo hantidii ciwaankeedu waa askarigii iyo hantidii ama maalkii waxa ayna ku bilaabanaysaa waqaca shaabun faqiirun wiil dhalinyaro ah ama inan dhalinyaro ah oo sabool ah ayaa waxaa haleelay oo ku dhacay fii xubbin kalgacayl oo u qabo weliba fataatin inan ama gabar oo min caa'ilatin kasoo jeeda qoys thariya oo maalqabeen ah inan dhalinyaro ah oo faqiir ah ama sabool ah ayaa waxa uu jeclaaday inan kasoo jeeda qoys ladan ama qoys tanaad ah ama maalqabeen ah وتقدم لها وحونا usoo bandhigay liyaqdabaha soo uga doonto ehelkeeda ayuu usoo bandhigay laakiin ahlaha hase yeeshee reerkeedii gabadhaasi lam yuwaafiquhu iskuma aysan raacin iskuma waafaqin in wiilkan lagu daro inantooda sababtuna waxay tahay liikhtilaafi alwadci almaadi kala duwanaansho xagga maalka ah oo wiilkan maadaama uu faqiir yahay gabadhana ay kasoo jeedo qoys ladan in aysan isku qalmin nololna aysan wadaagi karin sidaas ayay isku waafaqeen oo khilaafkoodu keenay ilaa ana shaaba hase yeeshee inankii dhalinyarada ahaa asara an yathbuta nafsahu wuxuu naftiisa ku adkeeyey oo u caddeeyey liabweyha labadeeda waalid gabadha labadeeda waalid oo uu ku adkeeyey waa nafsadiisana uu sheegay in gabadhaasi uu doonayo facamala bijaddin aad buuna arrintaas ugu dadaalay nafsadiisana uu ku adkeeyey gabadhana inuu rabo ayuu ku dadaalay wataqadama wuu bandhigay maratan ukhraa mar kale ayuu ehelkeedii ama reerkeedii usoo bandhigay in gabadhan uu doonayo wa ahbata liahliha ahalkeedana wuu u sugay daalika arrinkaas uu ku adkeeyey facarafuu dabadeedna waxay ogaadeen ama ay garteen qoyskii gabadha ay kasoo jeeday anna shaaba wiilka dhalinyarada ahi jaddiyun inay dhab ka tahay arrinkan oo guurkan uu rabo lidaa sidaa awgeed marka waafaquu waxay isku raaceen cala alkhidbati doonistii ninkan uu soo doontay ayay isku waafaqeen oo gabadhii ayay siiyeen way u ogolaadeen ilaa ana azawaaja hase yeeshee guurka ama aqalgalka arooska ta'ajala dib buu u dhacay liannahu maxaa yeelay kaana jundiyan ninkaani waxa uu ahaa askari oo fil jeyshi ciidan ka tirsan askari ayuu ahaa oo ciidan ka tirsan saboolba ha ahaadee wadara an yabtacida waxaa qasab ku ahayd inuu fogeeyo ama kala fogeeyo bisababi alxarbi dagaalka uu ku jiro cambaladihi wadankiisa dagaalka uu ku jiro inuu kala fogeeyo iyo canhaa ayada guurkeeda iyo dagaalka oo wadankiisa uu ku jiro inuu kala fogeeyo sidaa ayaa qasab ahayd oo dagaalka marka hore uu dhammaado kadib oo guurka usoo jeesto ayaa qasab ahayd wattafaqaa marka ehelkii waxay isku raaceen an yacuuda in uu soo laabto wiilkan dhalinyarada ee askariga ah bacda alxarbi dagaalka kadib inuu dib usoo noqdo liyatamima azawaaj soo guurkii uu dhammaystiro oo hooshii loo guda galo wa fii yowmin min alayaami maalin maalmaha ka mida waqacat ilma'saat waxaa dhacday musiibo weyn waxaa dhacday musiibo xaythu kaanat ilfataatu musiibadu marka waxay ahayd xaythu kaanat ilfataat inantii ayaa waxay ahayd taquudu mid kaxaynaysa oo wada sayaaratahaa gaarigeedii baabuur ayay waday inantii maalin maalmaha ka mida ayay baabuur kaxaynaysay caa'idatan ayadoo u laabanaysa ila almansili guriga dhanka iyo guriga ayay u socotay gaari ayayna wadatay maadaama gabar oo maalqabeen ah ay tahay fatacaradad marka waxay wadada kula kulantay liisdidaamin
shil ayay kula kulantay wadadii waxayna ku gashay shilkaasi min sayaaratin musarraca gaari xawli ku socda ay gaarigeedii ayaa isku dhacay shil ayayna la kulantay gabadhii kadibna waxyeelo ayaa soo gaaray isbitaalka ayaana loola cararay faharaca marka waxaa soo degdegay ama u soo kala cararay ahlul fataati gabadhii reerkeedii ayaa soo kala cararay ilaa mustashfaa isbitaalkii ayayna soo qulquleen ay u soo kala carareen waqarajat alfataatu marka gabadhii ayaa ka soo baxday oo kasoo bogsanaatay ama kasoo ficnaatay min xaalati alkhadari xaaladii halista ahayd oo shirka uu gaarsiiyey ayay kasoo ficnaatay ee kasoo bogsoonaatay wacindamaa istayqadad markay soo toostay oo soo miir heshay laaxadad waxay eegtay oo ay fiirisay calaa ahlihaa reerkeedii ayay fiirisay waxayna ku aragtay calaamaati duhuul wasadma fajac iyo anfariir ama naxdin iyo shoog ayay ku aragtay qoyskeedii markii ayada soo wanaagsanaatay wastamara qoyskii waxay sii wateen sumtuhum aamusnaantoodii iyo fajacoodii ayay sii wateen oo aamusnaan ayaa kasoo hartay macal bukaa'i faqad ayagoo ooynaaya oo keliya aamusnaan iyo oohin keliya ayay iska wateen fa aqadad gabadhiina waxay wada bilowday tas'alu inay weydiinayso oo ay la yaaban tahay maadaama dhaawacay ama waxyeelo ay kasoo yara miir yeeshay tas'alu marka waxay weydiinaysaa bianiina wa alam taahan iyo xanuunkan ayadahay ayay weydiinaysaa ehelkeeda ayay weydiinaysaa waxa iyada taahan iyo xanuunkan dhibkan haysta waxa uu yahay wataxasasad waxay dareentay wajaha wajigeedii ayay wax ka dareentay in waxyeelo iyo wax ay soo gaareen fa adragat dabadeedna waxay ogaatay maa xadatha wixii dhacay oo musiibo ahay ayay ogaatay kadib markay soo miir heshay wa fahimad waxay markaa garowsatay anna wajhahaa wajigeeda qad tashawaha in waxyeelo ay soo gaartay oo fool xumaaday ayay garowsatay ayayna ogaatay tamaaman gebi ahaanba fa ajhashat bilbukaa'i waxay qarka u kortay inay oyso oo ay qayliso wabada-at waxayna bilowday inantii taquulu inay leedahay kalaamun hadal inay leedahay hadal ay ku dhawaaqayso mithlu hadalada ay ku dhawaaqaysay waxaa ka mid ahaa asbaxat bishicatin asbaxat waxshan wa tabkii bixarqatin waxay oranaysay asbaxat bishicatin waxay noqotay foolxumo ayay tiri asbaxat waxshan waxay noqotay dugaag hadadaas ayay ku dhawaaqaysay gabadhii wa tabkii wayna ooynaysay bixirqatin si aadah ayayna oohin u bilowday inay u oyso هذا ما ستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.